madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Selici ayaa maanta markii ugu horeysay shaaciyay inuu ka talaasulay murashaxnimadii kursiga afraad ee golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye kaasoo mudooyinkii u dhameeyay isku khilaafsanaayeen wasiirka wasaaradda ganacsiga munaasabad kooban oo ka qabsantay xarunta madaxtooyada oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale guddoonka sare ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo siyaasiyiin mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa lagu shaaciyay murashaxnimada uu ka tanaasulay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed halkan maanta la isugu yimi sida ka warqabtaan waxa soo dhow hadda maalin iyo laba ka harsan tahay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye shirmeynihii lixaad ee xisbiga kulmiye waxa weeye xisbiga maanta dalka ugu daaweyn xisbigaas waa xisbi weyn oo ballaaran markastoo xisbi siyaasi ah hawlihiisa iyo shirweynihiisa uu yimaado waxaa yimaada olole damac iyo hawlo axsaabta siyaasigii ay leeyihiin oo kulmiyeba uu ka mid yahay hase haatee xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aada u ballaaran waxaa mar walba xisbiga kulmiye hawlihiisa lagu maamulaa tala wadaag waxaa lagu maamulaa maxaanku idhaahdayey isqancin sidaa la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxaa isaguna yidhi waan tartamayaa oo guddoomiye ku-xigeenka afraad yidhi waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga maxamuud sacad saajin arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray degaankiisu wuu ku jiray taageerayaashiisu way ku jireen xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray hoggaanka xisbiga wuu ku jiray hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday si fiican baa loo soo daadihiyey golaha wasiirada xubno ka midaba iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyey iyo guud ahaan golahuba arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaana ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii la yidhi waan kula tartamayaa ah go'aan buu qaatay xisbigiisana wuu ka aqbalay raggiisana wuu ka tala qaatay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go'aan qaatay in uu isagu tartanka ka tanaasulo sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Selici isagoona ka warramay maraaxilkii kala duwanaa ee xisbiga kulmiye la soo maray muddadii uu ku jiray maanta aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga uu xisbi xaakim yahay xisbi mucaarad banaan joogayn xisbi xaakim joogo oo khilaaf galaan qaranka dhibaato ku yahay inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga Awdal oo xadaafiir doorasho aad u kala ka 17kii inaan mar labaad sii gelin qaybsanaan dambe tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga saajin inaan boos uga tanaasulo maadaama aanu adigi maanta waxa la nuweyn soomaaliya nuweyn waraab cunaa mardaan odigi samaroona anu madaxweynaha qaranka waxaan ahay dadano madaxweynaha samaroon baan ahay ama Awdal baan ahay marka waxay noqotay inaan kayga hadoo ila tartamay isagu soo joogsaday in aanu ka tanaasulo mudahay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ah wasiirka looga tanaasulay Maxamuud Xasan Sacad Saajin isagoona bogaadiyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland go'aanka uu qaatay ee kursiga uu uga tanaasulay aad iyo aad baan idin salaamay warkaygu ma badno waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oon constituency ka soo wada jeedno waxa weeyaan aad iyo aad raggii isku dhow baan ahay laakiin si xurgufta moogtahay siyaasaddu waa iska sunnatul xayaat intaa wax dhaafsana ma jirin
waa labada iyadoo baahan marka ta koowaad waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arrintii aan isku qabannay aad iyo aad baan moogta ugu mahadnaqayaa waa nin moogtahay xisbiga raggii dhisay ka mida hedel badanna ka soo galay isagoo u turaya markaa xisbigii au moogtahay asaasiyaashiisa ka mid ahaa xisbigii au dhowr iyo 10 sano hedelka soo geliyey maanta in uu moogtahay iiga tanaasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka Sub News magaalada Hargeysa.